halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax sabti ah 5 bisha Oktoobar sanada 2019. arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid ah ugu yaraan 60 qof oo haatan la og yahay inay ku dhinteen dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda Ciraaq. tirada dhalinyarada Soomaalida ee uu soo ridanayo mukhadaraadka ay isticmaalaan oo Minnesota ku soo badanaya. haddaba sidee arrintaas lagu xallin karaa? haddaad maanta cunugaaga kala hadashid ood u sheegtid in waxaan ay tahay wax dhibaato ah oo caawimaad u baahan wuu og yahay isaga inuu caawimaad u baahan yahay laakiin markuu ogaado inaad adigana ogtahay inuu caawimaad u baahan yahay isaga way u fududaanaysaa inuu caawimaad raadsado. qaar ka mid ah haweenka hal abuurka leh oo sheegay in haweenka aan la siin fursadii ay ku soo bandhigi lahaayeen waxyaabaha dareenkooda khuseeya. haddaba haddii fursadaasi la siin lahaa maxay soo bandhigi lahaayeen? waxay soo bandhigi lahaayeen baahiyaha ay qabaan dumarku ay ka mid yihiin baahiyaha u gaarka dumarka ay ka mid yihiin doorarka nolosha ay ku leeyihiin ee ahayn doorka guriga ay ku leedahay oo kaliya ay ka mid yihiin doorka ay ku leedahay nolosha rasmiga ah. qodobadaasi oo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Macaawiye Maxamed Buraale anigoo Cabdifatax Ibraahim Cageerna in la socodsiinay balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Axmed Beder. mahadsanid Cabdifatax. madaxda saddex guddi oo Koongareeska Mareykanka ka tirsan ayaa warqad u diray aqalka cad taasi oo ay ku amrayaan inay soo gudbiyaan dokumentiyada la xiriira baaritaanada xilka qaadista madaxweyne Trump. madaxweynaha ayaa waxaa lagu eedeeyay in dowladda Ukraine uu ku cadaadiyay in baaritaano musuqmaasuq ay ku furaan ninka xilka madaxweynenimada kula tartamaya Joe Biden. Mr. Trump ayaa waxa uu beeniyay in wax khalad ah uu sameeyay. saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 60 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen 40 maalmood ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka dowladda. dibadbaxyada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 100 qof oo kale. dadka ayaa inta badan waxyeelada soo gaartay jimcihii aanu soo dhaafnay shalay waxaana ka mid ahaa dadka dhintay 2 askari oo booliisa. wadaadka galangalka weyn ku leh siyaasadda dalkaasi Muqtada Sadar ayaa waxa ugu baaqay ra'iisul wasaare Cabdulmahdi inuu xilka ka dago. khadadka tareenada guud ahaan Hong Kong ayaa la xiray kadib markii shalay dibadbaxyo rabshado watay ay halkaasi ka dhaceen. waxaa ka mid ah wadooyinka xiran wadada halbowlaha u ah socodka garoonka caalamiga ee Hong Kong. saraakiisha gaadiidka ayaa waxay sheegeen inaysan khadadka tareenada dib u furi karin maadaama ay burbur ka soo gaareen dibadbaxyadii halkaasi ka socday. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay cabasho uga muujiyaan mamnuucidda lagu soo rogay waxyaabaha ay wejiga ku duuban jireen ee maskarada. xukuumadda Iiraan ayaa waxay sii daysay lamaano u dhashay dalka Australia kadib markii xabsiga ay ku jireen muddo bilooyina. wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Marisa Bayena ayaa sheegtay in Tehran ay tuurtay dacwadihii ka dhanka ah Julia King iyo Mark Viking. lamaanahan ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyay in diyaaradda nooca droniska ah ay duuliyeen iyaga oo aan wax fasaxa ka haysan dowladda Iiraan. waxaa lagu eedeeyay sidoo kale in ay sawirro ka qaadanayeen meel u dhow saldhigyo militari oo ku yaala Jirjood oo ku taalla waqooyiga Iiraan. ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu joojiyay in dalka Mareykanka ay soo galaan dadka aan iska bixin karin adeegyada caafimaadka. waxa uu sheegay in nidaamka caafimaadka Mareykanka uu culays badan kaga yimid dadka aan haysan caymiska caafimaadka. warkina waa naga intaan dib idin ku celiyo barnaamijka aroornimo iyo Cabdifatax Ibraahim Cagayare. aad u mahadsan tahay Axmed Beder ayuu kaasi ahaa oo wararka caalamkeena la socodsiinayay. dhegeystayaal u soo dhawaada qaybaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen saraakiisha waddanka Ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan 60 qof ay haatan la og yahay inay ku dhinteen 4 maalmood ee ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka dowladda waddankaasi Ciraaq ee dalkaasi guud ahaan ka dhacay. in boqolaal qof oo kale ayaa iyana la sheegaya inay dhaawacmeen.
inta badan dhimashada ayaa waxay dhacday maalintii jimcaha ahayd aynu soo dhaafnay shalay ahayd waxaanan dadkaasi dhintay ka mid ahaa 2 askari oo boolis oo toogasho lagu dilay faahfaahinta warkanna waxaa soo akhriyay oo haatan stuudiga gula soo biiray Mucaawiye Maxamed Buraale. Mucaawiye cafta hadda rabshadaha ka taagan dalka Ciraaq waxay gaareen halkii ugu darnay tan iyo markii la jebiyay ururka lama baxay dowladda Islaamka 2 sano ka hor. dibadbaxyadu waxay ka bilowdeen carada ka dhalatay shaqo la'aanta iyo musuqmaasuqa dadweynaha reer Ciraaqna banaanbaxyada dhigayna waxay codsanayaan in mas'uuliyiinta dowladda Ciraaq ay xilka isaga degaan sidoo kale wadaadka galaangalka kula siyaasadda shiicada ee dalkaasi Ciraaq Muqtada Sadr ayaa u baaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq inuu xilka isaga dego Caadil Cabdul Mahdi isla markaasna Ciraaq laga qabto buu yiri doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay si xaaladda loo dajiyo waxa uu soo kala sheegay in wuxuu amar ku bixiyay in xildhibaanada mucaaradka isagu hogaamiyay inay isaga baxaan baarlamaanka tan iyo inta dowladda ay ku dhawaaqayso tallaabooyin wax ku ool ah oo xaaladda wax looga qabanayo inkasta uu dhiiga ka daadanaya dalkaasina dowladda waxay amar ku bixisay inay bandow ka qaadayso magaalada Baghdad maanta balse ma kala cadda waqtiga bandowga soo kala laga qaadi doono magaalooyinka kale ee rabshadaha ay ka taagan yihiin ee dalkaasi Ciraaq qaramada midoobay Mareykanka iyo hay'adda Amnesty International waxay walaac markaasi ka muujiyeen rabshadaha ka taagan dalka Ciraaq waxayna u baaqeen mas'uuliyiinta iyo laamaha ammaanka dalkaasi inaysan awood xad dhaaf u adeegsan dadka dibadbaxyada ka dhigaya wadooyinka dalkaasi. aad baad u mahadsan tahay Mucaawiye Maxamed Buraale ayuu kaasi ahaa faahfaahinta warkaasina la socodsiinaya Facebook ay dhegeystayaal raayigooda kaga soo dhiibteen Aadan Nuur Cabdullaahi waxa uu joogaa Boosaaso waxa uu leeyahay 60 qof ay ku dhintay dibadbaxyada ka dhanka dowladda Ciraaq waa arrin laga murugoodo waxaana muuqata in la iska leynayo shacabka dhibaataysan ee reer Ciraaq xasan xuseen xasan oo jooga Cadaadad waxa uu leeyahay aad baan uga xumahay dibadbaxayaashaas gaaraya 60 qof ee lagu dilay ay ku dhintay dadka dhibaatada ka dhacaysa wadanka Ciraaq runtii dibadbaxyadaasi waxba ma soo kordhinayaan waa in arinta la iska xalliyo oo xal laga gaaro waxaan qaar kamid dhageystayaasha BBC-da ee Facebook markana waxa lagu soo waramayaa inay sare u kacday tirada dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ee soo ridanayo mukhadaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada ayaa waxa ay isticmaalaan dawooyin ay mukhadaraad ahaan u qabatimaan kuwaas oo halis gelinaya naftooda oo bilihii ugu dambeeyay waxa dhibaatooyinka arintaasi ka dhashay u dhintay ilaa iyo 22 dhalinyaro taasi waxa ay horseeday in bulshada halkaasi ku nool ay walaac ka muujiyaan dhibaatadaas sida daraadeedna ay xoogooda isugu biiriyaan sida arintaasi xal ay ugu heli lahaayeen haddaba kulan looga hadlayay khatarta ay arintaas leedahay soo kordhisayna waxa lagu qabtay halkaas waxaana ka qayb galay wariyahayaga Siyaad Saciid Saalax oo warbixintan inooga soo diray hooyo ilmaheedii bay u dhaawacsan tahay hooyo ilmaheedii bay u hooyeysaa khayr allaha siiya wiilashan halka noogu yimid annaga ayayna qusaysaa annaga u soo haajiridii dalalka galbeedka waalidiinta Soomaaliyeed waxa ka haysta caqabado ay kala kulmayaan dhalinyarada waayadan dhibaatadu maalinba meel bay ka imanaysaa Minnesota waxaa hadalhaynta ugu badan noqotay dhimashada dhalinyaro isticmaasha kiniiniyo xadkooda dhaafsiisan oo maandooriye ahaan ay u isticmaalayaan dhimashadu sanadkan 2019 waxay maraysaa inta la og yahay 24 waxaase la baraarugay markii bishii tagtay ee Sebtembar 4 Soomaali ah la aasay dhalinyaro wanaagsan iyo tiro hooyooyin ah ayaa isa soo abaabulay goobtana ku wada murugaysan marka laga hadlayo waxa socda iyo dhacdooyinka qaar ayay la ilmeynayaan markaad maalin walba arkaysid cunugaagii oo isdhaafsan oo habeenkii aan imaanaynin hooyo seexata ma laha marka qarsashada aan qarsanayno haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa nooga caafimaad badan inaan ka hadalno haddaad maanta cunugaaga kala hadashid ood u sheegtid in waxaan ay tahay wax dhibaato ah oo caawimaad u baahan wuu og yahay isaga inuu caawimaad u baahan yahay laakiin markuu ogaado inaad adigana ogtahay inuu caawimaad u baahan yahay isaga way u fududaanaysaa inuu caawimaad raadsado waa hooyo Soomaaliyeed oo dhiiran waxay fartuun dheel u bareertay xalinta dhibaatada balwadda ay wiilkeeda ku jiidatay waxay u hurtay maal iyo waqti si ay ugu dabiibto aakhirkiina waxay gaartay arrin tusaale mudan waxayna ii sii raacisay markaan aniga furtay qalbigayga oo aan cunugayga inuu xanuunsan yahay oo kale ula dhaqmay oo aan la fariisto iraahdo haye ma iska dayn kartaa hal maalin xataa
oo isku dayaya asagana inuu iska daayo laakiin uusan iska dayn karin inuu dhididaayo anigaa markii dambe ku caawiyey waa ku soo dhoweeyey waa ku caawiyey waa la raadiyey markii dambena asagaa wuxuu yidhi hooyo hadda lacagtaada keliya kuma isticmaalayo bahashan aniga waa ogahay inaan iska dayn karin xirma ihi meel baan raadsanayaa maantana meeshii buu ku jiraa meeshaas baa hadda haysanaa Soomaali laba wiil hadda meel leh treatment ah kan marka wiilkan wuxuu ku caawiyaa ciyaalka medication ka yareynayo xanuunka ay ku qabanayso balwad la'aanteeda baa lagu siiyaa waa halis haddii dan iyo daruuf isbiirsatay ay qofka meel dhigaan balse qofkii daryeel rasmi ah hela ayaa ka bixi kara dhibaatada dhalinyaradan maanta waxay u istaageen inay iskala hadlaan khatarta qaar ka mid ah la soo daristay xanuunka ay arrinta ku haysana waxay ku keentay inay mahmahaan ayada maxay ku maamahdi jirtay cunto qofku si waa helaysa ba qofku waani ma helaysid kulli Soomaali waxay ku mahmaadaa far kaliya qorax ma qariso waa ay dadaaleen waxay taasi muujinaysaa xaaladda taagan in wax u sheegis iyo wadar in wax loo wada qabto weeye ujeedadoodu dhalinyaradan inkastoo la waaniyey iyaguna dhankooda ayay waalidka wax uga sheegayeen hadii hooyo hal mar gacanta ku taagtay tiraado ilaahayo cunuga ii soo hanuuni ilaahay wuu ku hanuunin karaa soo hana habaarin markaana habaartid habaar samadu gala meelna ma ku dhaco meel cidlana ma ku dhaco soo hadaa imaado anoo indhahay guduud ah ama hadaa imaado anoo cunto cuneenin ama anoo jahawareer haayo hadaa ay habaartid habaarkaas meel ku dhacaya intay dhiglaad ilaahay ku soo hanuuni maxaa dhasay war wilaale war adoo samaams maxay ku habartama adoo socoto gaari ha ku dardaro waxa isweydiin leh waa maxay dawooyinka ay dhalinyaradan qaataan oo ay u dhintaan halkayse ka keenaan waxaa si wadara inoogu sharxaya yuusuf shaafi iyo samsen maxamuud oo ka howlgala xarun lagu dabiibo dadka daroogadu daashatay oo ku taalla Minnesota dhalinyaradan waxay qaataan kaniiniyo badan oo xanuun baabi'ine iyo kaniiniyo kale loo dhaho maxaa la laayay Percocets iyo fentanyl iyo carfentanyl daawo laga qaataan markay basadaan qofku ugu dhiman karaa mid kale oo hadeertan wiilash badankooda dilayso fentanyl kala dhaho kaasi wadada jidka ka iibsanayaan qaalina ma ahan wadamada kale laga keenaa badana marka ugu horeysay dhalinyaradu ay la kulmaan darooyinka noocay toonan ha ahaadaan waa markay high school ku jiraan codkaana wuxuu u dambeeyay warbixintii waryahayaga Siyaad Saciid Saalax oo wadanka Mareykanka inooga soo diray BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxa ay tilmaamaysaa 7:12 iyo 30 ilbiriqsi warar kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah film laga jilay qabyaalada iyo loo bixiyay qab iyo iil oo aanu warbixin idin kaga helnay balse markan boqolaal sano ka hor qowmiyadda Oromadu waxa ay lahaan jirtay maalin ay xusaan maalinta odayaal dhaqameedyadooda ee loo yaqaan abaagadayaasha la doortay waxaana ay isugu soo bixi jireen caasimadda waddanka Ethiopia Addis Ababa oo markaas ahayd cayl la oran jiray Finfinne 150 sano ka hor ayaa boqorkii la oran jiray boqor Milileq waxa uu sheegay qowmiyadaasi in ay xafladan ku qabsadaan meel ka baxsan magaalada Addis Ababa waqtiga kadibna maanta ay markii ugu horeysay xafladaas ku qabsanayaan magaaladaasi isbedelada Ethiopia ka dhacay awadi hadaba waxaan umuurtaasi ka wareysanay abaagada kamid ah abaagadayaasha qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabo Khadiir Cabdinuur wariyaha BBC da magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayuu khadka telefoonka ugu waramay walaalow arrintani qarniyo badan bay soo jirtay nimanka taariikhaha qoraay way isku khilaafsan yihiin qaar wuxuu ku leeyahay 5,000 oo sano ka hor bay bilaabatay qaar 2,500 adigu inta qoraalada kombiyuutarada ku jirtay waa qarnigii 16aad laga soo bilaabo laakiin 5,000 oo sannadood way soo jirtay maxaa yeelay arrintani waxay ku bilaabatay xuskani samayntii xeerka iyo dastuurka systemka abaagadaha oo dimuqraadiyadda iyo maaragtay horumarku meesha uga bilaabmay loo og yahay marka munaasabadan magaalada Finfinne ama Addis Ababa ayaa xarunta bartamaha u ahaan jirtay oo lagu qaban jiray sababta loo aasaasay ma waxay ahayd baad leedahay abaagadayaasha samayntooda iyo ama doorashadooda iyo ku soo bilaabatay arrintani hawa de dhaqan qoomiyad walba dhaqan u gaar ah oo maalin u gaar ah bay leedahay iminka dawladaha Yurub iyo Afrikada qaarkoodba maalintaas ama dalkeenanba gobolada maalin qoomiyad walba maalin ay dhaqankeeda xustay leedahay marka dhaqankaasi dawladda marka jiri jirtay ilaa caalamkaba ku baahday systemkan abaagada oo ahaa
marka maalinta koobaad ee maaragtay dhaqankaas uu bilowday ayaa lagu xusaa. ahmiyadda marka ay u leedahay qowmiyadan oromiya maalintaasi waa maxay? ahmiyadda ay u leedahay dee waa maaragtay dhaqankooda iyo caadadooda oo maaragtay si ayna u dhaqan guurin oyna caadadii u tagin caadadii oo xornimada ay ka mid tahay iyo dadnimadii iyo jiritaanka dhaqankaagii iyo caadadaadii iyo systemkii aad lahayd ee dimuqraadiyadda ahaa inaad ilaashato oo jiilka dambena u gudbiso. marka faa'iidaday u leedahay allabari lagu allabaryo oo sanadkiisa markuu ilaahay uu waktigii soo gaarsiiyo mahadnaqa ilaahay lagu mahadnaqdo oo lagu ducaysto. kulamadii hore kulankani muxuu kaga bedelan yahay? kulankani wuxuu kaga bedelan yahay meeshii xarunta koobaad ahayd ee caasimada u ahayd ama bartamaha oromiya ahayd oo lagu xusi jiray oo xoog iyo dictatoriyad lagaga kala dareeriyo dadkii wadankiiba laga raray ee aadsabaad xaruntii dalka ama qoomiyadda oo ama afrikaba meeshii ahayd oo ugu weyneyd oo lagu xusi jiray ayaa xoog lagaga celiyey. marka hadduu ilaahay isbedelkan iyo naacawdan ilaahay soo celiyey waxaa kow ka ah oo dadkii maaragtay loogu bishaaraynayaa in xaruntayadii aan si xornimo ah aan ugu ducaysanayno oon dhaqankanagi iyo caadadanadii aan ku qabsanayno. abagade waxaan ognahay arrintan inuu hadda ka hor diiday boqorkii boqor Menelik loon jiray 150 sano ka hor isla markaana Dhabrazeyd uu yidhi ordaya ku qabsada. marka haddii aad tidhi caasimadii Finfinne ama magaalada Addis Ababa dib ugu soo noqonnay 1 milyan oo ruux oo Oromo ka badanna maanta ay goobjoog ka tahay oo sabtiya ma laga yaabaa dad kale oo cuqdad ka qaada arrintan oo qowmiyadaha kalaas inay jiraan ma laga yaabaa ama la arko oo dhibaato kale ay keento arrintani? iminka nidaamka sida loo qorsheeyey loo gudanayo xuskaasi ma filayna inuu maaragtay waxna carqaladeyn karo oo arrintani soo taagi kara laakiin qofku damiirkiisa wuxuu ku qarsan uu iska jiraa xornimadan iyo isbedelkan dadkii dadka gumaysan jiray ee soo dhibi jiray way ka wada xun yihiin. taas calooshiisa ninka ka xunisuu doona weeyaan. laakiin maanta sida nabadgelyada iyo nidaamka iyo qoomiyadaha kasoo qayb galaya iminka meeshii aan taagnahay waxaa laga bixinayaa kumaan oo VVIda baabuurta lagu qaato oo qoomiyadaha kale 1 milyanna ma aha tiradaasi ilaa 10 milyan ayaa la filayaa inay maalintan maanta ee sabtida ilaa 10 milyan inay isugu timaadaan laga yaabaa oo oromada oo keliya qoomiyadaha kale markii lagu darana wayba kasii badanaysaa. waa tahay kaasi waxa uu ahaa Khadiir Cabdinuur oo ka mid ah abaagadayaasha qoomiyadda oromada waxuu khadka taleefanka ugu waramayay magaalada wariyahayaga magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. wixii kasoo kordhana warkaasi idaacadaha iga dambeeya aad ku maqli doontaan. balse markan ciyaarihii aanu eegno maanta waa maalin sabti ah waxaa dhacaya kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaarta ugu soo horeysana waxay dhex mari doontaa Brighton and Hove Albion waxa ay ka hortagaysaa kooxda Tottenham oo baryahan ay ka liidataba oo ciyaartii ugu dambeysay Champions League waatii gurigeeda 7-2 lagaga adkaaday oo Bayern Munich ay halkaasi ku xaaqday. Burnley iyo Everton oo ay wada dheeli doonaan. ciyaarta ugu adag waxay dhex mari doontaa Liverpool iyo Leicester City waana ciyaarta aanu toos kusoo tabin doono. Norwich City iyo Aston Villa ay wada ciyaari doonaan. Watford iyo Sheffield United waa iska hortagi doonaan halka West Ham United iyo Crystal Palace ay ciyaar adag dhex mari doonto. haddaba kulankaasi Liverpool iyo Leicester City iyo ogeysiis ku saabsan ciyaartaasi ayaanu idiin haynaa. Mawlid barnaamijka ciyaaraha ee tibinta tooska ah ee sabtida waxaan idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay ee Liverpool garoonkeeda Anfield Stadium ay ku qaabilayso kooxda Leicester City. Liverpool iyadoo ku ciyaaraysa gurigeeda lagama badin 43 ciyaarood oo xiriir ah waana kooxda kaliya kooxaha shanta horyaal ee Yurub ugu waaweyn ka ciyaara ee sidaasi samaysay. taasi waxay ka dhigan tahay mukulaal minikeeda joogta miciye libax bay leedahay. Leicester City ibtirada haysata waxay tahay garoonka Anfield ee maanta lagu ciyaaray kuma aanay badin 9 sano. tababare Brendan Rodgers oo horay u soo leeliyay Liverpool ayaa maanta dib ugu laabanaya garoonka Anfield. haddaba dharbaaxa ma ku dhufan doonaa kooxdiisii hore Liverpool iyadoo ma xagsan doontaa haybadda ay ku naaloonayso ee ah inay tahay kooxda kaliya ee Premier League ka tirsan ee ilaa hadda aan laga badin. igula soo biir tabinta tooska oo soo geli doonta 4:00 saacadda Afrikada Bari una dhiganta 2:00 saacadda London haddii aan la idmo. waa tahay ogeysiiskaasi muhiimka ah haddaba dhegta ku haya dhegeystayaal. markanse waayadii hore iyo maantaba waa ay yaryihiin haween qoraal riwaayada la jilo oo ay hal abuureen waxayse ka qayb qaataan jilitaanka filimada iyo riwaayadaha ay raggu sameeyaan.
dad badan ayaa rumaysan haddaba in riwaayadaha soomaalidu waqtigan iyo waayadii horeba la daawan jiray aanan lagu wada muujin doorka muhiimka ee haweenku ay leeyihiin mid awoodeed ama kaalinta nolosha ay ka qaadan karaanba. waxa keliya ee lasoo bandhiga ayaa ah kaalintooda hooyanimo ama guriga dhexdiisa. yaasmiin maxamed kaahin waa halabuur dhalinyaro ah, waxay ku nooshaa magaalada Hargeysa. waxay qabtaa in haddii dumarku hal abuurkooda soo bandhigi lahaayeen ay samayn lahaayeen kuwa muujiya hanka iyo awoodda haweenka ee aan aadka loo sheegin. waxay u warantay waryahayaga Sadiiq Maxamed Burma. riwaayadu horta saameyn bulsho oo aad u weyn bay lahaayeen marka horeba, iminkana leeyihiin inkastoo gaabkaasi aad u bannaanaaday intii ay burbureen tiyaatarradii Soomaalidu. doorka ay ku lahaayeen haweenku mar walba ma ahayn door aad u ballaadhan sida ay ugu leeyihiin raggu oo kale, waayo hal abuurka masraxiyadda ee Soomaalidu wuxuu u badnaa kuwa ay raggu qoraan hal abuurkii. abwaanadu waxay qori jireen riwaayado, deedna doorka ay dumarku ku lahaayeen waxay haayeen in ay iyagu jilaan. marka haddii maxay haday jilista oo kaliya ta un ma aha ee doorkii ay ku lahaayeen qaab dhismeedka bulsho ee ay haweenku qaybta ka yihiin, waxay ahayd mid aad u malaynayso inay ahayd qabyo. waayo markaad taagan tahay qofku markuu gudbinayo dareenka uu matalayo ama uu qorayo, dee qofna ma gudbin karo dareen aanu isagu qabin. marka aan leeyahay dareen aanu isagu qabin, markuu qofku hal abuurka yahay qof laba ee uu qoro ama ka hadlayo arrin haween, waxaa laga yaabaa inay ka saameyn badan tahay haddii ay qori lahayd hal abuur dumari. marka doorarkay qaadan jireen ee sheekooyinka ay kaga jireen maxay yihiin? waxay u badnaayeen maxay haday doorar lagaga sheekaynayo un dumarka awoodahooda qayb ka mid aynu ka hadlayno, gabadh gurigeedii joogtaa ama inan iyo inan isjecel. doorarka ugu badan ee ay yeelan lahayn doorka ay haweenku kaga jiraan bulshada wuxuu ahaa mid gaabiska ah. marka waxaad leedahay gabadh iyo gurigeeda iyo odaygii qabay unbaa inta badan ay sheekadu lagu matali jiray, gabadha iyo gurigeeda inta badan doorkay qaadanayeenba u ahaaba. haa, oo waxaynu odhan karnaa doorar badan oo gabadhu lahayd baa aan lagu muujinin, ee waxa lagu muujiyo doorka gabadhu ay ku lahayd gurigeeda ayuunbaa lagu muujiyay, halkii awoodihii kale iyo doorarkii kale ee nololeed ee bulsho ee ay lahayd aan lagu muujinin. markaas sababtu maxay tahay? dee walaal, anigu taa waxaan qabaa inay tahay Sidiiqow, haddii hal abuurku uu yahay qofka hal abuuraya dareenka qofka uu gudbinayo. iminkoo kale haddaynu ka hadlayno qof inayna awoodooda soo bandhigin uun ay ahayd sababtay u qabyooday. marka ay raggii abwaanada ahaa riwaayadaha samaynayaan door walba oo ragga khuseeya dhib iyo dheefba way ku soo bandhigeen wixii rag khuseeya. maxaa ka maqanaya dumarku hadday gabadhi ay qori lahayd ama ay jiri lahaayeen ilaa waqtigaas gabadho, waxyaabaha ay soo bandhigi lahaayeen ee iyagu dareenkooda khuseeya ka mid ah? dee waxay soo bandhigi lahaayeen baahiyaha ay qabaan dumarku, ay ka mid yihiin maxay hiday baahiyaha u gaarkaa dumarka, ay ka mid yihiin doorarka nolosha ay ku leeyihiin een ahayn doorka guriga ay ku leedahay oo keliyata, ay ka mid yihiin doorka ay ku leedahay nolosha rasmiga ah, ama ha ahaato inay ganacsiga tahay, ama ha ahaato inay leedahay hal abuur kale, ama inay leedahay han kale, sida hanka ragga iyo hal abuurkooda iyo doorarkii nolosha ku leeyihiin rasmigaaba loogu soo bandhigayay, in iyagana doorarka kale iyo hibooyinka doonisaha kale iyo ay lahaayeen in lagu soo bandhigi lahaa, oo hadday gabadh qori lahayd ay isu miisaanlaan lahayd ayaan filayaa. marka maxay tahay baad is leedahay sababta haweenka laftigoogu gabadh inay isugu dayi waayeen inay wax qoraan? wallaahi taa waxaan qabaa un hibada badaneed dumarka ku duugan ee aan soo bixin inay tahay, ama aynaan ku dhaleecayn karin, aynaan odhan karin de awooddaasi way qarsoon tahay, laakiin waxaynu odhan karnaa haweenka awoodoodaas weli waanay soo ifbixin siday u soo ifbaxday hibada kale ee halabuurka ragga ahayd. waxaa laga yaabaa inaanu qofka halabuurka dumarkii aanay kartideeda aaminin. haddii ay aamini lahayd inay soo saari lahayd siday u aaminsan tahay halabuurka jilista ee ku jiraba inay soo saarto, inaanay u aaminin tan. laakiin waxaa laga yaabaa haddii ay arkaan dhowr qof oo dumar oo wax qoraya ama haweeno wax soo bandhigaya, in iyaguna ay ku dhiiradaan oo haween kale oo wax qoraya. hadiiba loo dhiirigelin karaa haweenkii kale ee halabuurka ahaa si ay doorkooda dee dumarun ka hadla ma ahay si ay hibadooda usoo bandhigaan. qaybta bannaan een doonayno inaan weliba buuxinaa waxa weeye ee xagga hal abuurka ah jilista, oo ah hibo Soomaalidu leedahay oo qof kastoo Soomaali wax jili karo, laakiin u baahan in dhaqankii iyo nidaamkii saxda ahaa ee wax loo jilayay ee masraxa loo soo istaagayay in la baro oo lagu layliyo qofka jilaha ah.
taasi waxay ahayd yaasiimiin maxamed kaahin oo ah hal-abuur dhalinyara oo ku nool magaalada hargeysa waxay u waramaysay waryahayaga magaaladaasi sadiiq maxamed burmad dhanka haweenka haddaanu dhegeysanay waxaa jira dhalinyaro kale oo dhanka ragga ah oo filimaanta soo saara shirkadda filimaanta rio waxa ay haddaba dhowaan soo saartay filim laga jilayo sida ay soomaalidu ula ildiran tahay qabyaaladda islamar ahaantaana ay si fudud isaga dhintaan filinka oo lagu magacaabo qab iyo iil ayaa waxaa ka mid ah jilayaasha jilaya allahu naxariiste axmed xasan cawke oo aad wada taqaaneen oo intuusan dhiman ka hor ka qayb qaatay jiliinkaasi iyo weliba cabdisalaan hareeri oo labadooda b b c da ka wada tirsanaan jiray haddaba filinkan waxaanu si aan wax uga ogaanay waxaan wareysanay soosaarihiisa axmed faarax oo stuudiyaha nagu soo booqday waxa u waramay ibraahim maxamuud jaamac filinka fikradiisa waxay ugu dhalatay mar aan ku safray wadanka dhexdiisa tuulo kaleeto aan u gudbaynay in dhacdo in la weydiiyo yaa tihiin qabiilkaa tihiin ana markii ugu horreysay ahayd aan wadanka aan imaado qof baa ila socday oo markaa ihagaya oo wadanka si fiican u kala garanaya marka inkastoo igu yeeray adiga iska aamus aniga hadlaayo marka waxaan iska leeyahay qof yaqaanadii dadkii iyo qabiiladii waan la soo booday marka waan kala hadalnay qabiilkii waan sheegay laakiin ciddan kasii ahaa waan labadeena kala hadalnay marka markii dambe haddii ay dad kale naga hor yimaadaan sidaan yeelaynaa kasoo waxaan yidhi haddaan idhahdo Soomaali baan ahay oo Soomaali ku adkaysto maxaa dhacay dadka dhan waa wada Soomaali kasiir waxa sidaa looma fikira taasina waa qisada ay ku dhamaanayso la soco marka walaashii baa la wacay marka waxaa yiri waxa tahay qabiil hebel waxa ka tahay qabiil hebel ilaa lafta jilibkii hoos marka bugi warqad ku qoratay marka waxay noqotay marka meel kasta imaano inaan marka dadka u sheegno maadaama dadka ereyada jooga dhan ay inta badan isku qabiil ahaayeen barnaamijka waxaa si weyn uga dhex muuqda Allahu naxariiste Axmed Xasan Cawke iyo waliba Cabdisalaan Hareeri bal saas soo hesheen maadaama aysan jirin dad wax jila inta badan dadka Soomaaliyeed aysan ku dhex jirin say kugu suurta gashay inaad u kulantaan oo waliba aslo jaan qaadaan maadaama Cawke aanu saxaab ahayn ilaa 2010 si fiican u sii aqaanay meesha aanu rabnay inaan filim ku jirnaan ee Hargeysa ahayd isagana de uu meesha uu ka yahay qofka kaliya oo wadada hadii uu dhinaca laga imaado dhinaca kale uu ku socdo gawaarida ay ka joogsanayaan marka waxaan ula tagay inuu iga caawiyo locationada aan wax ku duubayay hubka u baahnaa dawladda adi marka inuu noqdo qofka aan wajigiisa ku socdo marka intaynu wada sheekaysanay marka sheekadu yiri iga sheekay maxay tahay oday sidaa kasir adayga ma jishid odayga markaas yiri diyaar aniga waa aad baan farxay marka maana ka filaynin sababta kale ugu tagnay Cabdisalaan Hareeri ila socday marka aan u tageynay Cawke in qiso adigu aad leedahay aad samayso ka Soomaali ahaan kuma badna dadka filimada sameeyay inta badan filimo laga sameeyay way jiraan oo dad ajnabi ay sameeyeen runtii u badan dhinaca positive sax marka in adigu qisadaada aad samaysato faa'iidada leeyahay ku jirto faa'iidada ku jirto waxa ay tahay marka qofka ajnabiga ah uu sheekadaada sheegayo sheekada laba dhinac bay leedahay isaga dhinac uu ka arko ayuu inta badan sheegaa midda kale sameynta filmada waxa weeye waa commercial qofku wuxuu doonayaa inuu isaga shaleemo dad badan yimaadaan oo lacag u ka sameeyo marka filmaha Soomaalida sheekooyinka laga sheego inta badan waxaa focus kala saara wax dadka kale ay xiiseynayaan sida burcada gaajada marka marna ma dhacayso in film international oo Soomaali laga sameeyay uu ka sheekeeyo gabadha yar ee tuulada doctor quruxda badan ee hooyadeed iyo aabaheed jacaylka ka dhaxeeya ka hadlayso marnaba laga ma yaabo in Hollywood intuu ku imaado sheekadaas uu sheego in laba qabiil oo isdilayay sababta isku dilayaan iyo wax meesha ka dhacay laga ma yaabo wiili awaawihi sheekada dhexmar laga ma yaabo marka wajiga kaliya ta sheekadaada banaanka imaanayso waa tan wararka laga sheego in newsyada laga sheego waa dhaab qaxootiga soo galay Soomaalida sidoo noqotay meesha ku qarxeen doonbay la degtay adigu waa on Liibiya galayeen marka mar walba waxa weeye sheekooyinka ama qaxooti baa tahay burcad baa tahay ama waxa tahay qof terrorist marka ma adu sheegtay marka ayda waxa tahay waa marka sheekooyinkaaga kale wanaagsan because sheekooyin badan oo wanaagsan jira Soomaalida qof kale ku sheegay ma laha adiga ka hayn absolutely waa tahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Faarax oo soo saaray filimkaasi la magac baxay qab iyo iil inta waxa uu waramay wariyahayaga Ibraahim Maxamuud Jaamac waraysigaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii uu soo saaray Macaawiye Maxamed Buraali aniga Cabdi Ibraahim Cagay la socodsiinayay Mubaarak Cabdallan oo farsamada inoo joogay cidii barnaamijkan dhaafay wax dib uga daalan kartaa barteena internetka ee bbcsomali.com inta dib u kulmi doona labada duhurnimo haddii ay baydmo sidaas iyo nabadgelyo